بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan joognaa qubuuraha xerada qaxootiga Nakivale ee dalka Uganda. maanta waa 21 bisha Abriil 2026. run ahaantii ma arkaysaa waxaan u imaanay ziyaaratul qubuur inaan qubuuraha aan soo booqano. marka waxaa markii igu dhaliyay kelimadda inaan aan duubo arrin yaroo mudan inaan ku cibro qaadano dhammaanteen, iyo ma arkaysaa inaan in yaraan isu waanino. dadka halkaa ku aasan aad arkaysaan waa inta badan waa walaalo Soomaaliyeed. waa Soomaaliya gobolo kala duwan bay ku kala dhasheen. nin ka mid ah ku fakarayay in maanta uu ku dhiman doono Uganda, xerada qaxootiga ku taala halkaa in lagu aasi doonaa, qof ku fakaray ma jirin. laakiin waxay ka mid tahay cilmu ghaybka oo Ilaahay Azza wa Jalla isaga uu la keli noqday. laakiin waxaan wada ognahay dhammaanteen in la dhimanayo. kullu nafsin dhaa'iqatul mawt, naf walba geeri way dhadhaminaysaa. ani waan og, adiga waa ogtahay, qof kastana waa ogyahay. laakiin haddana halkii lagu dhiman lahaa iyo maxaa geerida ka dambeeya qof og ma jiro. intaba Ilaahay baa garanaya walaalayaal. marka mudan intaa haddii aan isla ognahay in loo wada shaqaysto waxa geerida ka dambeeya. qofka muslimka inuu dadaalo inta tawartiisa ah. haddii dembi uu ka dhacana markiiba uu Ilaahay u soo noqdo. macnaa qofka dembi waa ka dhici karaa, laakiin markiiba inuu qofka rabbigiisa u soo laabto. Ilaahay Ghafuur Rahiim waa. marka walaal Ilaahay Azza wa Jalla wuxuu leeyahay suuratu Luqmaan aakhirkeeda: yaa ayuha nnaasu ittaquu rabbakum wakhshaw yawman laa yajzi waalidun can waladihi. dadow rabbigiina ka baqa, waxaad iska ilaalisaan oo aad ka baqdaan maalin laa yajzi waalidun can waladihi, oo waalidka canugiisa uusan ilmihiisa wax u qaban karin. walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shaya, walad la dhalayna uusan waalidkii wax u qaban karin. maalintaasaa imaan doonta. halkaanayna ka bilaabatay, qabrigaas ayuuna ka bilaabtay. ma arkaysaa maanta qofka qabriga ku jira, caruurna wax uma tari karto, cid wax u qaban kartaana jirin walaalayaal. qof walba iyo wixii isaga uu shaqaystay waay. marka Ilaahay Azza wa Jalla wuxuu leeyahay: inna wacda Allahi xaqun, yabooha Ilaahay iyo ballanti Ilaahay xaqiiqo waay. macnaa waxuu Ilaahay sheegayo janno iyo naarba waa jiraan. Ilaahay aakhirada uu ka hadlaya waa jirtaa. godkii waad arkaysaa, xisaabna waad dambaysaa. inna wacda Allahi xaqun falaa tagurrannakum alxayaatu dunya. ma arkaysa waxaad iska ilaalisaan nolosha adduunyada inay idin dagto. macnaa adoo adduunya raadinayo ama ilmahaaga mustaqbalkoodii ka fakeraya in ay aakhirada kaa mashquuliso, oo salaadii aad kaga mashquushid, oo khayrka kaga mashquushid, oo aakhiradaadii dhan baad u seejisid caruurtaada dartooda. aad salaadihii aad jamaacad ugu tukan weyday, oo aad risqi xalaal aad ku raadin weydaa, xalaal iyo xaaraan wixii kaa hor imaadaba aad qaadatid adduunyo darteeda. taa iska ilaaliyaysa. adduunya baan idin sheegay buu leeyahay Ilaahay, adduunyadan waa laga tegayaa. falaa tagurrannakum alxayaatu dunya, adduunyaysa idin dagin buu leeyahay. marka walaa yagurrannakum billahi algharuur, shaydaanna Ilaahay yuusan idinka dhagrin. shaydaan beri waxba idinma qaban karo. wuuna sheegay Ilaahay, ma arkaysa in maalinta qiyaama uu dhahay aniga cid aan xoog aan ku lahaa ma jirin. intaa horta Ilaahay dardaarankiisa walaalayaal, oo aan rabo markaan oo qubuurihii jooga inaan nafteedan aan kula dardaarmo, idinkana aan idin xasuusiyo. marka aayadda ku xigta Ilaahay wuxuu leeyahay: inna Allaha cindahu cilmu saaca, saacadda qiyaamo xogteeda Ilaahay unbaa garanaya. xilligay dhici doonto Ilaahay unbaa og, cid ka war haysaa ma jirto. cilmi qaybkaa Ilaahay baa og. wayunazzilu alghaytha, Ilaahay roobka isagaa keena. cid kastoo aan Ilaahay, cid kale aan Ilaahay aan roob keeni kartaa ma jirto. wayaclamu maa fi larxaam, gabadha uurka leh uurkeeda waxa ku jirana Ilaahay wuu garanayaa. Ilaahay wuu garanayaa waxay gabadha ay sudo. wamaa tadri nafsun maada tagsibu gadan, waxaa kaloo huwaal ah naftu inay dhimanayso way ogtahay, laakiin beri waxay kasban doontaa ma oga. Ilaahay unbaa garanaya iyadan. wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut, sidoo kale naf og ma jirto meel ay ku dhiman doonto. taas baa igu dhalisa walaalayaal. dad anigu aan garanaya ayaa halkan ku aasan. rag aan 2007 xeradaan aan iskula noolayn oo dhoof aan isla raadinayni ayaa maanta Ilaahay qadaray in halkan lagu aaso walaalayaal. marka walaalaheena
dantooda waxay inay dhoofaan laakiin ilaahay wuxuu qoray in halkan lagu aaso marka ilaahay awoodiis walaalayaal in allaha caliimun khabiir ilaahay isaga wax kasta og oo khibradeedana leh cid ilaahay kaga ogaal badan ma jirto wax kasta marka rabbi caza wajal isaga marka nafaraya walaalayaal inaan adduunyada aanan ku kadsoomin aan aakhiradana u shaqaysano oo aan isdiyaarino ayuu ilaahay nafaraya marka ilaahay caza wajal waxaan weydiinaynaa walaalaheeni naga hormaray oo annagana aan gadaashooda aan ku biiri doono inuu ilaahay qabrigooda u waasiciyo ilaahay waxaan u weydiinaynaa insha allah inuu dunuubtooda inuu ilaahay dhaafo inuu ilaahay iska cafiyo qof aanan dembi gelayn ma jirto bani aadana la wada yahay laakiin kelimada tawxiidka iyo salaadihii ay tukadeen ilaahay dunuubtooda ha ku dhaafo ilaahay jannada ha ka waraabiyo ilaahay booqashada aan maanta aan soo booqanay qubuurahan ilaahay dunuubtooda ha ku dhaafo ilaahay kii ciriiri ku jirana ciriiriga ha uga saaro ilaahay kii ma arkaysaa raaxo ku jirana jannada ku jirana ilaahay jannadii ma arkaysaa daaqadihii jannada ilaahay ha u sii furo kuwii kalena ilaahay ziyaaradan maanta aan soo booqanay ilaahay dunuubtooda ha ku dhaafo rabbi caza wajal annagana khaatimo wanaagsan ilaah nagu dilo ilaahay adduunyada naguma fidneeyo ilaahay khaatimada ha noo wanaajiyo jannatu lfirdows ilaahay ha nagu kulmiyo jazaakum allah khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu